muddo bil ah ayaa ka soo wareegtay markii uu shil baabuur ka dhacay caasimadda jamhuuriyadda Somaliland ee Hargeysa iyo wadada dheer ee isku xidha magaalada Berbera. haddaba halkaas uu ku geeriyooday Cali Maxamuud Guuleed Cali Marshal ayaa isna waxa ku dhaawacmay Cabdiraxmaan Cabdiqaadir. haddaba Cabdiraxmaan Cabdiqaadir oo indhaweydba ku sugnaa cariga Ingiriiska gaar ahaan magaalada London ayaa waxa uu ku sugan yahay hospitaalka la yiraahdo St James Hospital kaasi oo ku yaala Westminster. haddaba Cabdiraxmaan Cabdiqaadir oo aan ka wareysanay xaaladiisa caafimaad iyo waliba sidoo shilka baabuurku u dhacay. horeysa waxaan doonayaa inaan taxsi u diro qoyskii saaxiibkay walaalkay Cali Marshal xaaskiisii hooyadii walaalihii carruurtii waa adeerkacay oo aad u jeclaa qoyska uu ka baxay Cali Marshal inaan taxsi u diro. waxaan doonayaa Somaliland inaan taxsi u diro sababtu ay tahay nin weyn oo kaalin weyn ka hayay oo mustaqbal weyn ku lahaa oo wanaageeda iyo horumarkeeda wax weyn ka tari lahaa baa inaga baxay oo shilka aanu galay ku dhintay. adiga dhaawac intee leeg ayaa ku soo gaaray? aniga laba meelood baan wax ka noqday. waa midee horta lafta dheere shafka taas way jabtay. xagga dhabarkana saddex lafood oo mid sii khatar tahay baa iyaguna jabayo i burburay. tii shafka iyada markiiba waxa la yidhi way isqabsanaysaa oo iyadu dawo ay leedahay ma jirto. halkan markaan imeeyaan Kenya ka imanayay waxaan filayay in dhabarka layga qali doono oo qalmaad baan filayay, laakiin dhakhtaradii halkan markay waxay yidhaahdeen waxa jabidaadu lafihii ways haystaan, marka wax qalidood u baahan tahay ma jiraan. waxaad u baahan tahay inaad jiiftid oo aad nasatid. taasaan iminku ku jiraa. xubnahaygii iyo wixii oo dhan way bad qabaan, cagahaygii waa bad qabaan. sidee ayuu u dhacay shilka baabuurku? iskumaanaan ogeyn inaanu isa soo raaco. waxaan isku ogeyn isna inuu gaari kala raaco, anna aan gaadhigiisa soo kaxeeyo. gurigii buu igu yimi isagii maxamed xaashiyo wada socda. intii miftaaxii ii dhiibay buu yidhi hoo adigu kaxee, dabeedna xagga dambe u fadhiistay. waanu soo tawakalay, saban baanu soo soconay, waanu soo soconay. dhexda markaanu marayno markii hore aad baanu usoo degdegayno, waxaanu islahay diyaaradda kaga gaadha airportka. dhexda markaanu marayno baa Cali telefoon loo soo diro waxa la yidhi diyaaradda way timi. markaasaanu qoyo speedkii aan yaraynay, laakiinse waa meel bay ilaahay wax ka wado. maalintiisii bay ahayd shirkaasi shil la qoray oo qadara uu ahaa waa ka marxuumkaasi ku dhintay wana dhaawacaasi. waxaan doonayaa inaan u mahadnaqo dadkii badnaa ee shicibkii badnaa ee reer Somaliland ee cid kastaba lahaa, ee xisbi kasta lahaa, ee cid kastaba ku jirtay, ee dhakhtarkii Hargeysa igu yimi ee la kala huri waayey. aad baan ugu mahadnaqayaa. haddaba halkaasi waxaa joogay bulsho weyn kala duwan iyagoo ay ka mid yihiin xildhibaanada Ikraam Xaaji Daa'uud iyo Dr. Maxamed Cabdilaahi oo ah wasiirka arrimaha dibadda ee xisbiga kulmiye. goobtaasna waxaa ka sugnaa Axmed Cadare oo ah ganacsato reer Somaliland ah. anigoo Khadar Dirir ayaa warkan idiin soo tabinayay, waxaan idinka soo tabinayay Westminster, London.